oo dhan 320.8 bilyan oo bir Ibrahim Cabdi Muuse ayaa eegay falada warkan رئيس الوزراء جمهورية الديمقراطية فدرالka Itoobiya mudane Hayle Maryam Desalegn ayaa cadeeyay in nidaamka cashuuraadka iyo dakhli ururinta ee dalka lagu xoojin doono khabiiro la talin ah oo wadamada horumaray ee dibadda laga keenay dhanka kalena ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in hay'adaha dawliga ah ee khaladaadka miisaaniyad isticmaalka ku helaan hanti dhowrku laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan miisaaniyadan la ansixiyay oo dhan 320.8 bilyan oo bir ayaa boqolkiiba 62.8 bilyan waxa loo qorsheeyay arrimaha horumarinta asaasiga ah ee wadanka sida waxbarashada beeraha caafimaadka quwadda korontada ee miyiga shaqaabuurka dhalinyarta iyo hawlaha kale ee saboolnimada lagu dabargoynayo ugu dambeyntiina miisaaniyada sanadkan 2010 ayaa markii ay baarlamaanku si fiican uga doodeen ayay 320.8 bilyan cod buuxa ku ansixiyeen የመንግስት በጀት ዋናው ምንጭ ከሀገር ውስጥ የሚሰበሰብ ገቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዚህ ችግሮችና ሌሎች ተግዳሮቶችን በመቅረፍ sidaan wada ogsoonahay dhaqaalaha wadankeena intiisa badan waxa laga soo xareeyaa dakhliga wadanka gudihiisa waxa jira shakhsiyo dakhliga siyaabo khaldan u isticmaalay sida daraadeed dawladdu inta laaba laga qaado ma qorsheysan tahay ህብረተሰቡ አካባቢ የታክስ መክፈል አስተሳሰብ እንዲጎለብት የማድረግ ተጨማሪ ስራዎች ይጠይቁናል እነዚህን ስራዎችም አጠናክረን መቀጠል ያለብን ይሆናል si ay shacabku u ogaadaan faa'iidada ay cashuur bixintu leedahay waxa loo baahan yahay in nidaamka dakhli ku soo darno hawlo dheeraad ah sida awgeed si awoodda xafiiska dakhliga loo kabciyo oo ay cashuurtu uga madax banaanaato fikirada cijiriyon iyo dulsaarnimada isla markaana nidaamka dakhli ururintu uu noqdo mid cadaalad ku salaysan waxa loo baahan yahay in laga bilaabo 2010 ilaa 2020 waqti taariikheedka dalka in shirkado la talin ah oo dalka dibadiisa laga keenay ay la shaqeeyaan xafiiska dakhliga isla markaana dakhliga guud ee wadanku uu la gaarsiiyo boqolkiiba 7% በቀጣዩ የባጀት ዓመት በኤክስፖርት ዘርፍ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣትና የውጭ ምንዛሬ ግኝቱን ለመጨመር የሚከናወኑ ዋና ስራዎች ምንድናቸው? arrimaha dhoofinta wax soo saarka wadanka iyo soo xareynta lacagaha adag maxaa laga qaban doonaa? አሁን ያለንበት የኢኮኖሚያችን አወቃቀር በዋናነት ግብርና የበላይነትን የያዘበት ወይ ዶሚናንት የሆነበት ኢኮኖሚ እንደሆነ ይታወቃል። qaab dhismeedkeena dhaqaalaha wadankeena waxa uu ku salaysan yahay wax soo saarka beeraha iyo adeeg bixinta gaar ahaan waxa loo baahan yahay inaan badino dhoofinta wax soo saarka dalageena waxaan hadda ka hor si qoto dheer u ogaanay dhibaatooyinka dhoofinta dalageena hortaagan haddaba anigoo la kaashanaya beeraleyda bunka dadka ka ganacsada bunka iyo shirkadaha dhoofiye bunkaba ayaa waxaanu si gaar ah u ogaanay dhibaatooyinka hortaagan dhoofinta bunka iyo sisinta waxaan ogaanay in dhibaatooyinkaasi ay yihiin tayada iyo tirada bunka la dhoofinayo oo aan la daryeelin waxaan bilownay barnaamijyo wax laga bedelayo dhoofinta wax soo saarka beeraha ሀገራችን የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን ለማሳደግ የተከተለችው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ከመነሻው ተስፋ እያሳየ ይገኛል barnaamijka baarkiyada warshadaha oo hadda meel fiican maraya ayaa waxa dhibaato ku noqotay qalabyada yaryar ee warshaduhu u baahan yihiin marka arintan maxaa loo qorsheeyay በተለይ ደግሞ የኢንዱስትሪ ፓርኮች እና ኢንዱስትሪዎች ልማት አንደኛው ማነቆ የግብአት ማነቆ ስለሆነ የግብርና ምርቶች ግብአት ወሳኝ ነው waxaan ogsoonahay inay jiraan dhibaatooyin ka jira dhanka gashiga warshadaha dalagga dib u habeeya iyagana shacabka iyo dawladda dhaqdhaqaaqyo wanaagsan ayay ka wadaan xilli dhowna waa la xallin doonaa አንዳንድ የፌደራል ባለበጀት መስሪያ ቤቶች ከመንግስት የተመደበላቸውን በጀት ለታለመለት ዓላማ በአግባቡ እንደማያውሉ የዋና ኦዲተር ሪፖርት የግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲና sida ay cadeynayaan warbixinta iyo daraasaadiyada wakaaladda hanti dhowrka waxa jira xafiisyo aan miisaaniyadii loo qabtay sidii loogu talagalay aanu isticmaalin marka maxaa tallaabo degdeg ah looga qaadi lahayaa የፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የክዋኔ ኦዲትም ሆነ የፋይናንስ ኦዲት የማድረግ አቅሙ እያደገ መጥቷል ይሄ ለኛ በጣም ትልቅ እድል ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል waxa kor u soo kacday awoodda xafiiska hanti dhowrka guud ee dhinaca dabagalka miisaaniyadda iyo shaqada waana arrin lagu diirsado haddaba xafiisyada khalad yar lagu helay waxa la siiyay digniin qoraal ah kuwa khaladadeeda waaweyn galayna gaar ahaan jaamacadaha komishinka baadhista ee federaalka ayaa dacwad ku soo oogay waana la sii wadayaa shaqada haatan daawadayaal waxaad ku soo dhawaatay